maamulka gobolka saaxil iyo ka degmada berbera ayaa maanta si wada jira kormeer ugu sameeyay jidka laamiga ah ee u dhaxeeya berbera iyo hargeysa gaar ahaan inta ka sokaysa kaantaroolka galbeed ee magaalada berbera oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka socday dayactir iyo dib u habayn lagu sameynayo halkaasi ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta ee dowladda hoose Cabdikariin Aadan Cadde kaasi oo ka sheekeeyay marxaladihii kala duwanaa ee jidkani soo maray iyo waqti xaadirkani halka marayo 7 kiiloomitir ugu horeysay arkaysaan in kuna socdo habkii iyo hanaanka iyo qorshihii iyo waqtigii loogu talagalay si fiican noogu dhamaaday imka waxaan hortaaganahay baqarada Omar hortooda waxaana laga soo bilaabay istabta galbeedka ayaa laga soo bilaabay 7 kiiloomitir inoo dhamaaday timekii loogu talagalay iyo qorshihii loogu talagalay way ku socdaan in quality iyo systemkii loogu talagalay ku shaqeynayaan imika hawsheedu waa kormeer alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan rajaynaynaa inta hadhana in waqtiga loogu talagalay ay dhamaadaan imika waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha degmada maayirka degmada berbera ayaa ka warbixiyay ujeedka jidkan laamiga ah iyo waliba sanadkan waxyaabaha dawlad hoose ahaan ay qaban doonaan marka labaad waxa maanta aanu maamulka heer gobol iyo heer degmo waxaan kormeer ku maraynaa dhagax dhigii maalintii dhaweeyay dhagax dhignay wadooyinkii magaalada kor loogu qaadiyay bilicdeeda iyo tayeynteeda waxaanu maanta hor taaganahay magaalada qaybtii galbeedka ka imanaysa gabagabadeedii oo 7 kiiloomitir ku dhow waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala inay noqoto horukaca iyo dadaalka san horeba u sheegnay bisha koobaad iyo labaad waxaan ugu talagalnay ilaa 6 bilood hore in mashaariicdu ay dhamaato istaba joog bay noqonayaan mashaariicdu waxaan leeyahay shacabka reer berbera iyo dadka reer berbera iyo dadka reer saaxil gobolka saaxilba waxaan leeyahay magaalada berbera waa tareenkeedu uu dhaqaaqay yaan boosasku ka buuxsamay boosaska hore ha ku daalin siyaasadda barasaabka gobolka saaxil Jaamac Yuusuf Axmed oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay عبد الرحمن محمد عقيه تلفزيون كساب تيفي مقالة بربراء.